haddii ilaahay yiraahdo ka shaqayn doonaa isu furidda qulubta dadka Soomaaliyeed iyo inay wax wada yeeshaan inta aan la gaarin siyaasadda oo dhici karta inay muddo qaadan karto. waxaa ka horeeya in dadka walaalaha ee Soomaaliyeed ay wax wada yeeshaan. waxaan ula jeedaa inay wax wada yeeshaan maadaama ay wax weyn ka dhaxeeyaan labadii gobol, maadaama dadka Soomaaliyeed ay walaalo yihiin oo ay isku xiran yihiin dhinac walba. waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo Soomaalinimada iyo walaaltinimada. wax kasta oo keenaya in booga jiray la damqo waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalin doono. waxaa kaloo ballan qaadayaa in xukuumadda aan anugu hormuudka u noqon doono in ay keeni doonto tabo iyo siyaasado isu soo dhaweynaya labada gobol iyo labada shacab ee walaalaha ah oo halka shacab dabcan isku ah. waxaan rajaynayaa in ay dadka walaalaheena ee reer waqooyi ay niyad samaan naga fishaan. waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan jecelnahay. waxaan ugu baaqayaa